gabadhan xeelad cajiiba oo qof kasta aan kusoo dhici karin ayay ku dhaqaaqday si ay nafteeda u badbaadiso. Muuqaalka saa uga jeedaanba iyadoo meel mugdi iska socoto tartiibkeeda isaga laafiyoonayso ayaa waxaa soo agmaray laba nin oo mooto saaran. Meeshan waa wada xoogaa mugdi oo dheer oo ay kusii socotay. Waxay la istaageen saa muuqaalka arki doontaan kadibna way sii socdeen marka. waxay istiri walahi caawa lagu baqaa, caawa lagu yaabaa ama inay ku dhibaateeyaan ama inay waxa wadatid ay ka qaataan. ayaga waxay iska dhigeen marka si aysan gabadha u shikin kuwa sii baxay. Marka waxay rabaan inay xoogaa intay mirqaan kadib ay ku soo laabtaan. Isla marka iyadu way fikirtay intay fiirso waxay istiri hadaa socoto way ka daba imaanayaan. Hadaa ord istiraadana mooto watan daqiiqada kugu soo qabanayaan. Dhinacay fiirisay bacyaal qashin ku jira bacmadow mid kamid ah qashin ku jira intay ka daadsatay ee caadi u dhex gashay qashin ay iska dhigtay. wala muuqaalka qosol u leeyahay. kadibkeed nimanka waa mirqeen haddana way soo laabteen. Okay, markay soo noqdeen waxay taagan yihiin war qofti ma biibtay ta ka baxday way raadinayaan kadibna way iska baxayaan. caqli iyo xeelad way adag tahay markaad xaaladahan oo kale ku jirtiin horta waxyaas kugu soo dhacaan. Ani waxa ugu horeeyo ugu soo dhici la waa inaan ord isku taabto ama wixii ahaay markaas inta sii day bidahaba la isoo qabtay.